عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كسو دوادا channel كيغا Somali food recipe maanta موضوعنا wuxuu ku saabsan yahay موضوعي hore daba socdaa yani aan kasoo hadalna Jamaican black castor oil oo ayada kaligeed aan isticmaal marka maanta waxaan ku isticmaalaynaa avocado-dana waa taasaa maxaan ku rahdaa jaar waa soo diyaarsada aniga oo maxaan ku rahdaa blenderkaas ay ugu jirtaa loora maxaa u baahan tahay marka maxaan ku rahdaa inaan inta saliidooda aan ku darsanayno marka hore waxaan ku darsanaynaa xabad ukun qaybta jaalaha ah maxaan ku rahdaa waxaa kaloo ku darsanaynaa Jamaican black castor oil oo microwave-ka aan kusoo kululeeyay 10 second saliideena aan ku darsanaynaa okay waxaa kaloo u baahanahay inaan ku darsano coconut oil inta rabta ayadana inta aad ku jeceshahay ku darso sidoo kale waxaan ku darsanaynaa olive oil okay saliid Jamaican black castor oil qofka videogan kii hore aan daawan waa taasa laakiin iyadoo waa soo kulaasto jaar maxaan ku rahdaa microwave-kayga ee diyaar ahaan weel ku soo shubto waa isticmaal karaan okay marka waa shiidanaynaa waxaan u isticmaalaynaa timaha meel kale ma ahan timaha rabnaa inaan isticmaalno okay hadday kuu socon weyso waa ruuxaysaa un eeda maxaan ku raasideeda noqonaysa okay hadday adkaato saliid waa ku darsan kartaa laana bahasha waa inay si fiican u shiidantaa avocado-dani waa soo shiidanay waa taasaa waa ujeedin xataa midabkeeda wuu jaabu isu bedelay laana waxay ahayd abal hore midabkeeda cagaar markaa shiidnay maadaama saliido badan aan ku darnay 3 saliidood aan ku darnay maxaan ku rahdaa midabkeeda rogo saliidaha bedelaya waa saas inay smoothie u ahaataa hadday aysan si fiican u shiidmin mideeda kale avocado waa inaad soo iibsataa mid biseel ah laana mid cirin haddaa soo iibsatid si fiican ma kugu shiidmayso timahay kaaga dhegdhegaysaa hadhow ka dhaqitaankeeda wuxuu kugu noqonayaa mid aad u adag oo ku silcaysaa ku rafaadaysaa marka waxaa fiican inaad soo gadatid mid daliishaha ah oo ujeedaa gacanteeda waa sida kareem oo kale way ku baabaysaa gacanteeda ujeedaa way ku baabaadaysaa gacanteeda ma dareemaysid saasay tan qadan ugu baabaysaa hadhow oo maxaan ku rahdaa dufan kaliya noqonaysaa laakiin haddaa soo gadato mid cirinta waa ku silcaysaa noora waxaa ku soo haray qubkeedii oo avocado-da ma tuurayn maxaan ku sameynaynaa iyadana wajiga marsanayna ku masaajeynayna maxaan ku rahdaa dry skin-ka aad ugu fiican tahay ayadana lugaha gacmaha wajiga meesha rartid maxaan ku rahdaa inaad u baahan tahay aniga hadda tan iska tuuraya waa kaas bartaasaa dhigtay wajigayga ku masaajeynaya 15 daqiiqo ku sugaya kadibna waa iska dhaqaya faanta manayna maanta marka waxaa jeclaystay avocado-da timaha way bixisaa way dheereysaa mideeda kale waxay siinaysaa timaha way xoojisaa quwada siinaysaa awood oo yani inaysan timaha kaa go-in timaha marka waxay noqonaysaa oo maxaan ku rahdaa daciif ahaan oo sas marka loo soo qabto iska go-in avocado-da lafta timaha ka gashaa aniga waa soo tijaabiyey maxaan ku rahdaa waa la huwa 100% waa waxaa cuni kartid oo dhibaato ma lahan oo maxaan ku rahdaa kiimika ma lahan waxa maanta is dhahaysad maxaan ku rahdaa timaha haddaa marsato amay kaa go-aan intaasoo saacad haddaa ku haysid ma ahan intaas saacadooda rabtida ku haysan kartaa 2 saac 3 saacadood ugu yaraan ku haya daarta inay wax tar fiican ku yeelato kadib maxaan ku rahdaa shaambo iyo doobi shaambo ku dhaq resultiga meesha aad ka arki doono oo maxaan ku rahdaa bil haddaa isticmaashid waa usii bogaysaa marka isbuuci mar aba 2 mar haddaa isticmaashidna waa kasii wanaagsanba laakiin ariga jaaris badan ma uu ahay isbuuci halkaas mar maxaan ku rahdaa ka badan jaanis uma heli karo
وولاشين فرتون ما أنت وحن جعلستان إن فيديو كان يرى إذا الشر جريو وفائدة أبو كارده إلا هي وولاشين فرتون إذا له كفائدة سواء فضلا هذا عصبته هي سبسكرايب سي هذا فاميلي كفتها هذا السبب وحي طلعيه تسالة وحقينا waxaan ku fikradeedu waa muhiim waa inuu muhiim waa kasoo dhiiban kartaa walaashina fartuun leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu